السلام عليكم أصحابتا وردقدقة مقالة مينيابوليس waxaan ogeynay isniintii ciidamo 2,000 ka badan oo ICE iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha ee Homeland Security-ga isugu jira inay howlgal ka bilaabeen shalay haba ugu darnaato xitaa wasiirka amniga gudaha ay timid laakiin maanta waxyaabihii ay ka digayeen mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa Minneapolis ayaa dhacay toogasho ayaa dhacday qof ayaana dhintay sida muuqaalkan aad ka arkaysaan gaarigaasi gaduudan ayaa waxa uu ku horjaray gaarigiisa gawaari ciidamada ICE ay wateen waxaana arintan ay dhacday ku dhawaad 6 saacadood duhurnimo waqtiga Minneapolis markay ahayd waa 5 saac iyo 43 daqiiqo waxayna ka dhacday East 34th Street wadada 34aad iyo Portland baraf ayaa Minnesota ka daay sida aragtaan xitaa wadada baraf ayaa yaala marka gaarigan haweeney ayaa watay gaduudan sida arkaysaan codkii waan ka xiray maxaa yeelay dhawaqa risaas ayaa la maqlayaa ma doonayo in muuqaalka lagu dhago sidaas darteed markii ay istaagtay ciidamadii ICE gawaaridooda ayay ka soo dageen markaas kadib gaariga qofkii watay waa uu dhaqaaqay kadibna waxa la maqlayaa dhawaqa 3 risaas ah kulay qofkii waliba dhinaca gaariga qofku uu ka waday ayaana laga maqlayaa risaasta ay ku riday oo askari ka tirsan ciidamada ICE uu ku riday haweeneydii marka risaastii waa ay ku dhacday gaarigeedii waa uu dhaqaaqay gaari kale oo baakin yilay ayuuna gadaal uga dhacay xitaa qiic ayaa la arkayay marka kulay risaas ayaa qofkaasi ku dhacday markii dambe xitaa waxa la leeyahay ciidamada ICE waxay u diideen dhakhtar meesha ka ag dhawaa in qofkaasi dhaawaca ah uu caawiyo oo laga yaabo markaasi inuu dhaawac ahaa waxa sidoo kale ay u diideen gaarigii ambulance-ka ee yimid muddo 15 ilaa 15 daqiiqo ah wadadii ayay xireen in uu soo galo markii dambe qofkii oo dhintay meydkiisa ayay gaarigii ka soo saareen ciidamada ICE waxayna saareen gaari ambulance gaarigii ambulance-ka oo iyagu ay wadada ka celiyeen inta badan gawaarida gurmadka degdega ah lagama celiyo wadooyinka xitaa haddii aad gaari wado haddii uu dibdamis yahay haddii uu boolis yahay iyo haddii uu ambulance yahay waa inaad ka istaagtaa wadadana aad u banaysaa haddii calaamada sirens ay u shidan tahay oo gaariga uu dhawaaqayo gurmadka degdega marka wasiirka amniga gudaha arintaasi waa ay ka jawaabtay waxa ay tiri ciidamada ICE oo howlgal wada ayaa qof waxa uu isku dayay in gaarigiisa uu hub ahaan ugu adeegsado oo uu dul marsiyo sida darteed tababarkooda ayay isticmaaleen qofkaasina waa ay toogteen fal argagixisanimo ayayna ku tilmaantay xitaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin waxa ay tiri ciidamadu way istifaaceen tababarkoodii ayay isticmaaleen qofkaasina waa ay dileen oo waa ay toogteen waxa sidoo kale la leeyahay askar ka tirsan ciidamada ICE ayaa dhaawac soo gaaray laakiin dhaawac fudud kulay waxay leeyihiin qofkan gaarigiisa ayuu doonayay inuu ku weeraro hub ahaan ugu adeegsado ciidamada ICE marka qofkii kulay waa uu dhintay gaarigaasi gaduudka ayuu watay qof dumar ah waa ayaa la leeyahay ilaa hadda magaciisa lama sheegin qofkaasina waa uu geeriyooday markii dambena meydkiisa ambulance ayaa qaaday waxaan arkayay taliyaha booliska oo goobta yimid waxa yimid Jeelani Xuseen oo hay'adda xuquuqda muslimiinta u doodo care oo yiri wixii aan ka baqayna waa ay dhaceen shir jaraa'id ayayna qabteen mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Minneapolis wixii ka soo kordhana waa idila soo socodsiin doonaa laakiin arintaasi ayaa dhacday howlgalkii ay ICE wadeen dhimasho ayaa ka dhalatay mas'uuliyiinta booliska iyo kuwa dawladda hoose ee Minneapolis iyo St. Paulna arintaasi waxay ka digayeen ilaa iyo December markii ciidamadan ay howlgalka bilaabeen waxyaabaha kale ee soo kordha stay tuned haddii alla idmo waa idila soo socodsiin doonaa